بسم الله الرحمن الرحيم. marka ugu horeysa waxaan taasiyo u dirayaa eheladii qaraabadii ilmihiisii ciidanka booliiska Puntland ciidanka booliiska Soomaaliyeed shacabka reer Puntland dhammaan waxaan uga taasiyanayaa geeridii naxdinta lahayd ee ku timi gaashaanle sare Xasan Shire Amaan oo ahaa taliyihii saldhigga garoonka diyaaradaha Boosaaso oo maanta ku geeriyooday magaalada Boosaaso. shilkaas shil naxdin leh ayuu nagu ahaa annaga ka ciidan booliis ahaan وانا كتعسينيا رون ahaantii inta hadii aan ka tago Xasan wuxuu ku geeriyooday afaafka hore ee garoonka diyaaradaha Boosaaso checkpoint-ga hore meel qiyaastii 5 talaabo u jirta waxaana dilay oo gacantiisa ku baxay askari ka tirsan askarta ciidanka garoonka diyaaradaha Boosaaso. askarigaasi si lama filaan ayuu sarkaalka ku dilay si lama filaanna uu ku fakaday hase ahaatee hadda waxa aan xog ku haynaa in magaalada Boosaaso gudaheeda uu ku jiro xaqiiqatan ciidanka booliisku way xireen meel allaale iyo meeshii aan isleenahay qof fakadi waa mari karaa magaalada Boosaaso magaaladana gudaheeda ciidamadu waa ku jiraan baaristii ayaa socota. intaas waxaan ku darayaa waxa joogay ciidan checkpoint-ga u jira 5 talaabo ee lagu dilay sarkaalka ciidankaas unugii shaqada lahaa waa xiray baaris ayaa ku socota maadaama sarkaalkii meel 5 talaabo u jirta lagu dilay run ahaantiina ayaan wax talaabo qaadin baaristaas wixii ka soo baxana gadaal ayaan idinkala socodsiin. sarkaalka aqoon baan u lahaa horay taliyaan ugu ahaa taliye qayb baan soo ahaan jiray taliye ciidan baan soo ahaan jiray haddana taliye ciidan baan u ahay sarkaal karti badan aqoon badan aad iyo aad dareemi kartaan capacity-ga shaqada uu hayay intaas ayaa idinkaga filan aqoontiisa iyo kartidiisa inta Allah u naxariisto.